Soomaaliya hore waxay u maqashay Muuse oo ciidanka daa Faysal Cabdi Bootaan la qabtaa ku xigtay Axmed oo ciidanka daana waxaa ku xigto Dhuumaal iyo Maxamuud Siid baa la soo qabtay marka iyana oogle iyo dadkii xasharaadka ah oo Axmed uu isticmaalayay oo ahaa nimankii la dhihi jiray daba dhilif meeshaan gadaa la yiraahdaa Mareexaan Kismaayo degan yahay wuxuu degan yahay Jubbada Dhexe Jubbada Hoose gado intaas waa degan yahay Axmed dawlad ma aha waxa Kismaayo ka jirana Jubbaland lama yiraahdo waxa la yiraahdaa Juffaland baa la yiraahdaa qofkii Jubbaland yiraahdo wuu ku dambaabay qofkii arkay baa arkay dadka meesha noo joogo oo waa wasiirre iyo waa madaxweyne la leeyahayna noloshooda reeburlo adinku midna annaga aragnay 10 jeer oo u tagnay waa dad taxalluqa oo masaakiin ah oo la yaso oo aad iyo aad u liito dadka ayaga baa xuduudka taagan raggii dadka ugu qiimo badnaana ma garanaysaa ay ku baabeen meeshaana insha Allah waduu ilaahay yiraahdo gobolka Gado waa laga difaaci Juffaland iyo waxa la midka waa laga askarta Soomaaliyeed qof kasto askari Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliyeed u diiwaan gashan soo taliya xasilinta gobolka sheegay iyo taliyaalka ciidanka iyo barasaabka way sheegeen qof gooni loo target gareynayo ma jiro xariisu ku soo laabtay qofkii iska maleeshiyada oo Axmed Madoobe uu programiyena qof lama helo waa laga foomaad gareynaa insha Allah waana laga dhaqi fayraska 80 jirka ah oo argagixisada soo maray oo qurunka waa laga foomaad gareyn insha Allah Kismaayana waa laga cayrin Axmed Madoobe dadkana carabka Jubbaland la yiraahdo iska daayay Jubbaland waxa la yiraahdaa waxay Soomaali wada leedahay la dhaa meeshan jifa iskugu tagtay waa ciyaal Axmed oo adeer u yahay iyo asaga way magaalada Kismaayo inay joogaan bulaxawana ma iman karaan buurluwana ma iman karaan doolowna ma tagi karaan hadaa leedmaayo luuqna warkeeda gadana ma iman karaan insha Allahuna waa laga xoreyn doonaa magaca Jubbaland annaga iska leh saa horta loo fahmo Axmed shuqul kuma leh qarqar ka yimid Maxamuud sidoo ka dhash wuxuu taray waligiin ma maqasheen maya ooglana waa la mid Dhuumaalna waa la mid waana la cayrin doonaa insha Allah waduu ilaahay yiraahdo dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah annaga haddaan nahay reegada Soomaali baan oo la siman madaxweynaha Xasan Sheekhna waa la doortay Axmed Madoobena lama dooranin waa rajiim aan cadaalad ku dhisnayn oo been ah oo qubxi ah oo meel cilla laga maalgashtay way madaxweynaha Xasan Sheekhna xildhibaanadii baa doortay mandate buu haystaa meel aan annaga ku khilaafayno fara badan ma jirto dadka reegadana waa dawlad jecel yihiin saad ogtiin reebur waxaan ugu bishaareynayaa Jubbaland cusub baa la dhisayaa oo Axmed kama cabanaa garbaari baa la isugu imaan oqaasha imaanayso garadka imaanaya waana la dhisi wax badan baa la soo samray waa baaba midkan insha Allah waduu ilaahay yiraahdo waa si baabeynayna qof kasto oo Jubbaland ka socdo oo Axmed ra'yigiisa ku socdana falaysa minna naga mid ma wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh